وقيبتي تضباط برامج كتحناها أفمار قيبتي لحاده هوري وحا inoo joogtay sheekada qaybtii koowaad ee horjooga Maxamed Cabdullaahi Ayaanle oo loo goran og yahay Abayle iyo xilligii uu al-shabaab ku soo biiray iyo sheekooyin kale oo qoto dheer oo aad ku daawateen qaybtii hore ee lixaad ee isla Abayle qaybtan toddobaad ee barnaamijka Afmeer waxay ka bilaabanaysaa waayihiisii imaanshiyaha magaalada Gaalkacyo Maxamed Cabdullaahi Ayaanle kulankii isaga iyo Jeeri ay ku kulmeen magaalada Gaalkacyo iyo sida isku barteen shabakadihii uu Gaalkacyo ka hergeliyay muddadii uu joogay waxa kale oo qaybtan aanu ku dul istaagi doonaa ama uu uga warrami doonaa sheekadiisa xirashadii ay xirteen mulkiilayaashii geela ee uu ganacsiga kala dhaxeeyay lacagtii al-shabaab isaga ay ku goysay gaar ahaan horjoogihii ugu sarreeyay amniyaadka xarakada al-shabaab Maxamed Haashim Muumin Abu Dayib oo isagu lacagtaas markii hore ka amaahday sheekooyinkaas iyo kuwa kale oo qoto dheer oo la xiriira xilligii xagjirnimadiisa sida uu u arko Puntland gacanteeda inuu ku jiro waxa uu filanayo dareenkiisa guud iyo arrimo kale ayuu qaybtan toddobaad uga warrami doonaa Maxamed Cabdullaahi Ayaanle ka horna Jeeri aqoon hora iskuma aan lahayn nacnac baan ka iibsaday waa ag istaagay wuxuu ila ekaaday ninkan inuu nin reer koonfur yahay kadibna qaabka aan leenahay iyo nidaamka laba ma saddex maalmood inaan sahankii aan bartay baan ninkii ku soo noqnoqday waa 2019 bishii toddobaad weey maalintii dambe waxaan ku dhahay Jeeri ka war xaalad noo fiican ay yiri ka war xaalad ma sha Allah noo dadka la soo tuuriyo la soo qaximiya kamid noo dadka la soo tuuriyo la soo qaxiyayaan kamid ah halkii aan isku weydiinay Jeeri reer hooyadiisa anaga reer hooyadiisa anaga anagu hintira reer mareere bas halkii aan isku weydiinay nin baa ilaa kaatay noocaasa waa bas halkii aan iska jaan qaadnay adu rag isku imaado shir waa taqaanaaye saddex maalmood kadibna arinkii isku soo hadal qaadnay muddo markaan saddex maalmood afar maalmood aan la joogay baan dhahay ka war xaaladaas wuxuu yiri hooshaas waa ku jira waana wadaaba ee aniga waxa iga dhignaa nin ka howlgalo barxle ma noqon kartaa adig waxaan ku dhahay waxa ii sheegtaa oo kaliya guri aan cayaalka dajisto shaqadaas waa wax aan u baahanayba waayahay biri wuu ikaxeeyay saddex maalmood markii la sii joogay oo asagana iska sii hubiyay sagaal bay uu sii qaadatay wuxuu ii geeyay ninka loo yaqaan magaciisa Maxamed Abu Dayib loo yaqaan buu ii geeyay Maxamed Haashim Muumin Abu Dayib buu ii geeyay oo madaxa sidii Usmaan xagga boosaka ahayo kala aan ah shanta baxda iyo shanta kala baan is aqoon amniyaadka waaweynka ah alla ilaahay waxaan ku dhahay meeshaan waa meel ii anfacday aad baan ii anfacday runtii naag markaa magaalada booso joogtay oo waaga saaxiib ma ahayn ayadaba dhinac hadii la dhaho abaal iga soo gashay oo markaan baalash la ahay shaaxi iyo marfashadii aan u geeyn jiray baan dhahay hawreer halkaas aan joogaa ka war xaalad soo waxay tiri waa maqlay inaa halka joogtid waxay taqaanaa saraakiisha sarsare oo reer Puntland shaaxi ka gadan jireen waa islaan caan ah khayal dhaha kadibna waxay tiri nimban kula soo hadlaaye ninkaas numberka qabo numberkan soo moodid numberkayga mobilkayga habeenkii xaafadiisa aga soo haajir way number kale oo nin saaxiibkay leeyahay wata aan ku hadlaa kadib waxay tiri ninkii ay soo wacay xaalad ka rafiica ma sha Allah maxamed yarmi maxamed yarwe xaalad ka rafiica ma sha Allah gaariga hada soo baxay yiri oo xirad dayax oo hada jooga xagee joogta xirad dayax baa hilib ku gadaa gaariga soo raac
gaariga soo raac markuu yiri gaarigii baan raacay waa soo baxay boosaas tabtii ayaan ku galay boosaas haddaan galay boosaas markaas liska qabanaya oo Soomaalida iyo Carab loo kala baxay dadka Carabta lama qabto mugtay Sacuudi markay joogaan tarxiilku waa socdaa waxaan damcay inaan soo haajiro oo soo guuro waxa si fiican marti soori soo dhaweeyay Cabdi Cali oo taliyaha nabad sugidda Puntland oo xaqiiqo boosaas u joogaa wuxuu yiri niyahow wax ma ku sheegaa darisan nahay ninkaas wax badan baan daris ahaan shaqadeeda shaqalku ma leh wuxuu yaqaan in ka caadi hilibka gadanay waan yaqaanaa markaas yiri wax ma ku sheegaa waxa sameeysaa cararka iska jooji uu aan meesha ka guurayaan ku dhahay ninka saaxiiban ahaan gaalkacay wareegaya wuxuu yiri inuu gaalkacay me halkaas iska sii joog halkii baan iska sii joogay ilaa qadartiisa way mugtaa gruubka iga dhisan gaalkacyo waa imaada 3 bilood 2 bil kadib toosan ula soo wareegay halkaas toosan macnaa halkan ka shaqeeyaaba waxaan rabaa jeeri inkaas ina isku xiriiriyo way suuro waasay sababtoo ah mar hada gacan dawladeed gashid waxa loo fahmayaa sirti inay fakato cid ku aaminaysa ma jirto mar haday dawlad gacanta kugu dhigto xagaas waxa ka noqotay nooc kale waayo aaminka yaraanay qofkan waxa la aaminsan yahay mar haduu xaga galo dhibaatooyin farbadan inuu la kulmaayo kadibna wax walba daadinayo baa loo aaminsan yahay masaajidkii baa waxa arkay wijicid isiisa waa waayay sababta markaas ugu saxayay masaajidkii cid wiji isiisa waa waayay ninkasto ayaga bari gaar baa laga baxaa waa ka war xaalad fiican waa lu dhoofiyay waa soo noqotay bali leeyahay waxa fudayniyo habarinen ay ka soo niman rag Sooma haday soo diinta walaal soo kuma ahaan qolo kale diinta walaal ku tiina jirtaba wareeg gaalkacay sidii jeeri sal iyali tabtay ku soo wareegay gaalkacay waxaan ka shaqeeyay 10 sano oo soo dhaafnay ilaa 12 sano gaalkacay waxaan aga shaqeeyay si inama caadi ahaan koonfurta gaalkacay baan qaabilsanaa sirdoonka laamaha amniga sababtoo ah waxaan sameeyay tiin kale jeeri baan la tashtay maxaashi baa wuxuu yahay adeegaya keena dhanka lacagta wax bixinta hubabka marka ma sakhirna ninka laamaha amin oo haysta magaciisa laanta sahanka iyo sirdoonka waxa laga rabaa hubkaas hadii xataa ifan lala baxo asay madaxiisata howlgal kasto jiro ina hirtid maba ahaba mana heeraysid hadaa hirtid خلاص وكو dhamaat sababtoo ah hubka la baxaya ki wasiirkii amniga booska ni joogay idinka oo kala aan haayo amniyaadka ugu weenayeen amiirka ugu ween waxa ka dhaadhacaysa ma aha ninkaantii nin u soo galay hubka inoo qaato kadibna dawladda uu ku wareejiyo xagga kala soo dagaalamo oo raba marna kaama aaminayo hubkii waa laga dhacay marna dadkii baan waayay laga yeeli maay weena shaqada dhaxdo xirataa hubka aad ilaalsataa markii hoosh lagu soo fuuli waa ina wareejisaa hadana inta dhimata Allah naxariisto wax la soo tiri koow karama dad wax geystay inta ba isu jiraan
waxaan leenahay inta dhimatay afalla ama salaf shirkadda marka abaabushay tiin kalan abaabultiin kalan abaaro dhowr tiin baan isku abaabuli tiimamkii baa tirbateen aniga jeeri waa ka madax banaana markaa jeeri aan waa simanahay markaa magaalada si fiican baan u bartay nin aan wada simanahay baan maxaashan hoos tagnaa labadeena ani laakiin jeeri ima amar markaa ana amarka bixiya wax badan ayaan geysanay macna mar waxaas waxay ku dhacday wax walba aan noqotay caray ku dhacday iyo anagoona diinta islaamka u dagaalameena bayna ku dhacday waxaan noqday 2018 hilib la ugu weyn baan noqday gaalkacyo isla gaalkacyo baan hilib la ugu weyn noqday marka hilibkii waxaan isku wadaa mugta marka ana fangareen inaan bixi karo isku maleey macna waayo waxaan haystaa Soomaa maqal waxa la dhahaa xoolaha waxa loo qaataa amaaho kadibna balin baa la qabtaa muddada inta la gaarin inta amn shaqadaas wax kaga imaanayaan halka wax waa ka bixin kartaa dabir kartaa halka waxaan gadan jiray 20 neef oo geela 15 neef oo geela maalintii ma aha 10 neef 10 maalmood bay ku dhamaanay maalintii neef geel baan qalaa 10 neef marka maalintii aan ku dhameeyo muddo bal ninkan iga rabaa 10 neef lacagtoodii lacag baan iska hayaa marka oo dad leeyahay lacagta aan u maleeyay lacagta dadka ay leeyihiin baan halka haday wax soo raagaan baan ka dibri jiray halka iyo gaalkacyo markii hool ay soo fuliyaan ilaan ragii ada wax diray Soomaada amarka lagu soo sii amarka wuxuu ka soo baxay maxaashi adug soo sii hooshaas jirta halkaas wanikaasti waa sarkaal ninkaasti waa xildhibaan ninkaasti waa maxkamad gudoomiye wax walba markii lagu soo siiyo tusaale ah markii lagu soo siiyo ay hoosha ay soo fuliyaan waxa la siinayaa gadoonsiin wax la dhahayo markaastii ayakii lacag macnaha la siin karo ilaa 15 milyan $500 adu dollar ada qaadanay laakiin ayaka kaashkaas ay danayaan oo la siinayaa ayaan ku sii dabraya kaashka ana dollar kan soo qaadanaya gacanta waa 10 kii gaari wadin waa 15 milyan buu leeyahay $500 bay u dhigantaa 400 gacanta koobaad kaas la siinayaa 10 milyan buu leeyahay kan kala 5 buu leeyahay gaarigii waday hadii labadood gaari ay ka maarmaan oo labadaba hoosh is fuliyaan ay ka garanay 15 koos ay u qaybsadaan adu 15 kaas ninka kula balaminka ina gadoonsiisid hadba sidoo dollarkii yahay dollar xiliga wuxuu joogay 230 330 430 meelaha soo joogay waxay u dhigan kartaa 450 430 meelaha ay ka qaybsanay ما يفعتي أيضا هو شيء سيدا أن أوجرنا باو حاد عدي آتي أن كالحو معدي خرح باو حكاد عاي صوب وأنا أنجيسني صوب مركو خرح كاد عاي وحاكود دماتي هو يماتا سيدا عرور مساكين قارق عن الله waxa la sheegi kara Soomaali cid walba way fiirsatay taas ayaan waxaan kala hadlay maxaash soo waxaan ku dhahay maxaa dhacay wuxuu igu jawaabay maalintaas wuxuu yiri waxa u baahan tahay dhaqan celin waa maalinta aan la yaabay maalinta waxay ka dambeeyay dib u qorshaan sameeyay anoo sidii hor aan ku noqon baa waxaan sameeyay ina waxna bixiyo waxna wixii kale liiso amro iska hubiyo meeshii waxaan dareemay inayna markaan ay oolinba diin oo tahay dameer lagu shaqeystay inaan meesha ka noqdo baan dareemay macnaha in nin lagu shaqeysanay aan ahayo dameer ah
waa meesha ka dareemo waayo xanuunka hooyooyinkii miyuuna ku taabanin dadka meesha maatada ku dhinteen ayaan dhahay mogta wuxuu u jawaabay dhaqan celin ayaa u baahan tahay kadib hoosh markuu ii diro waxaan samayn jiray waa ka cagajiigi jiray wuxuu damcay anigii inoo si kale waan u baqay ninkaan inuu wax ii soo diro waxaan iska dhigay sideedii horan ku soo noqday caadi baan iska dhigay marka aniga isu dareemay kadib aan waayi meel aan u cararo raanto raam aan taagnahay oo ninkaan hadal iga fakadeen xageenu cararaa waa may hadda isdhiibto dawladda iska dhiibtana dee hilib la lagu ogyahay hadda dawladda iska dhiibtid maxaa noqonaysaa atiraadid nidaamku way fahmayaan oo ay soo dhiib atiraadidna ama haddana ay kusii xiraan ama anoo ku jira baa waxaan dhahaynay taadii iska sii wado halkaygiin ka sii bilaabta haddana waxay ahaatay socoto baa waxaa dhacday lacag waa xanuunsaday waxaan ku dhahay niyahow ani waa xanuunsanahay qaabka aad dadkan kula shaqayn lahayd keenso nin aan ku wareejiyo laguma baahno marka hore aan kaa shakiyaba marka wuxuu iga qabaa lacag gaaraysa $580 $580 igama qabo asiga 3,000 iyo xoogaa bay iga qabaan inta kale ana igu maqantay oo khasaarahay lacagta lii xiri doona waxay noqotay $580 waa baxay garowan aadi garow haddaan aadi xanuunka waxaan u aaday cabdicasiis baan waxaan u aadiyey ishaas dhaawacigii gaaray oo goojooyin qaldan lagu shubay cabdicasiis abeenad aan ka soo noqday ninkii waa iga maarmay waa iga tashtay anoo yaabanoo dhahaya niihow ninkaan muxuu kugu samayn doonaa ama ku jiro waa alxamdulilah waa la ii xiray naagihii lacagtii igu lahaayeen iyo dadkii geeli lacagtii igu lahaayeen baa igu soo baxeen waxay nasiibaa leedahay waxa iga fiican inay magaalada igu sii daayeen inay ii xiraan baa aniga ii fiicnaatay niyad run ahaantii sababtu waxay tahay ninkaan mar haddaa meeshaan aad ka baxdo wax calaaqaad aad ku leedahay ma jiraan waa baxay waxaan galay gaalshiraha gaalkacyo xabsiga weyn gaalkacyo la gelay anoo barteeda ku jira baa waxay samaysay dowladda Puntland wax allaala wixii magaalada gaalkacyo amiir ahaa oo ahaa amniyaad wax dili jiray wax qarxi jiray wax u tilmaamay kaalishe bay ku guuleysteen oo dad socda jeelkaygu imaaday ninbaa waxaan ku yidhi war maxaa dhacay hebel maxarin yahaa jeeri maxarin yahay jeeri wuu xiran yahay buu yidhi aanun isku sheegaynin wiilasha ii imaadeen ayakana isku sheegaynin laakiin aan fahansanahay anu way dhahay jeeri wuu xiran yahay mar hadduu saaxiibkay jeeri xiran yahay oona arkay oo ii sheegeen waxaan necbaystay haddana xiritaanka oon jeeri lil xiri doono waayo jeeri laba siman baan ahaynay inuu isoo sheegay liskuma hayo wixii way fashilmeen hadday aanu cararsanayo xabsigayga aan islahay xabsiga ku wanaagsan baa haddana jeeri xiritaankiisii liisoo sheegay kurba kale igu sii noqotay kurba xirig ahaan kama fikireen tolow jeeri hadduu ku soo sheego hilblay ku haysat waxaa caddaanaya meeshii inaad noqonaysid fashilaad haddii fashilintidna waxaa dhacaysa dadkii ninkii waa xiran yahay hadday ay maqlaana bannaanka saa ku baxdaysaa halis ah magaalada markaa xabsiga waxay u imaaday magaaladii gaalkacyo oo dhan la soo xiraayay baa maqlaa hadal ah caddeen socotaa iyo imaatay 4 nin oo caddeynaysa in magaaladii la soo xiray dadkii u waaweynaayeen bay ii sheegeen wiilasha
wiilashii ayaan su'aalay war waxaan ku dhahay war maxaa dhacay maxaan la soo xiray waxaan la soo xiray bay dhaheen waxaan ahayn baan loo tilmaamay oo maxaa ahaydeen anagu waxaan ahayn bay dhaheen dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalkooda hooyo degan shaqaysanaya oo haddii hooyooyinkooda wax u diraan ma aha ta kuwa shaqaynaya ma aha laakiin way shaqayn karaan oo shaqo kale bay qaban karaan laakiin shaqada aad u aragtid ma aha shaqada ay shaqaynayaan shaqada oo culimadu way qaban karaan waa dhalinyaro fudfudud waa dareemay inay ay xisbi ka tirsan yihiin markaa saa waxaan ku dhahay ka waran ayagii baan dhahay ka waran ka mid ma tihiin mid baa wuxuu yidhi adeer waan ahay ha qarinay sheeg labana qol kale la sii geliyay mid baa igu sii qoslay ayaga ani waxay i haystaan hilib leh marka uma oga inaan ahay amiir oo jeeriga ayaka ay sheegayaan nin la siman inaan ahay ma oga markaas ayaa waxaa dhacday waa qoslay waxaan ku dhahay jeeri ma xiran yahaa mar labaad waxaan ku dhahay jeeri ma xiran yahaa maxaa ka wadaa jeeri ma xiran yahay waxaan ku dhahay jeeri hadduu idinka idin soo xiray ama idinka aad soo xirteen jeeri waxaan ku dhahay idinka ka khaldan may wallaahi waxay dhaheen anaga ma soo xirine dawladii Puntland baa waxay soo dooratay nin cirib tiraba waxyaalaha noocaas ah amniga magaalada waxaa dhahay boqolkiiba 80 waa soo celiyay aad buu u mahadsan yahay baan ku dhahay maadaama ay talafar ay ka baxday waxa u fiican aan dhahay haraaga harina inay isdhiibaan baa u fiican baan wiilashii kula taliyay sababta ah maxay tahay ninkaas anu ma aqaan weligeena ma arkin la sheegay hadda hadduu hortaagan ma aqaan ninka waxaa la dawladii wuxuu la koobsaday Said Abdullahi Dani ninkan waxa magaciisa waxa la dhahaa muumin waxaan dhahay mar hadduu soo xiray khayr Allah siiyaan ku dhahay sababtoo ah kuwa lacagtay bay bixin waayeen ku dhahay waaba ku kacsanay marka horeba baniyada ka dhahay wiilish uma sheegin anoo taladii ku talatumaayo dawladii waxay keentay inay gudaha bay ugu soo gashay 8 bilood anoo xiran in loo yimaadaba hiliblaan ku xirnay deem baan ku xirnay kiis madaniya jeeri saaxiibkeedii la soo xiray jeeri wuxuu ninkaas yeetiin waa nin la mid ah magaalada wax dhaqaaqa la waayay wixii oo dhan howlgalkii shaqada wuxuu ku fulin dhahay dhan waa xiran yihiin nin baa ku guuleystay waxaa dhacday waa la soo waday niman baa yimaadeen way wareysteen ka war xaaladda ma sha Allah niyow waxa lagu sheegay ka war ma noqon weligii ma arkin mana noqon doonan ku dhax waxa tihiin ma aqaanay inabad galiya idin nabad galiya hilib laan ahay shaqo ku male afaar noocaasana ma ba aqaan email aad ka sheegaysan ogow hadda 2008 soo bilaabay war ma faant waxa dhacday shan maalin markay iga maqnaayeen baa waxaan soo galay waxaa lagu imaaday xabsi ali soo qaaday barbakas baa lagu soo qaaday gaariga daawarad barbakas loo yaqaan waxaa la keenay meel aan tilmaami karin hadda baa la keenay ninna haliga soo xiray meel aan joogi meel kale waa kala aqoon waayay waraysi la yeeshay hadda markay fool timaado budo qarsi dhamaa wixii haday ay satal gareysayeen oo fishilan yihiin waxa fiican in ad afar ama salafatiraad wixii dhacay ma taqaana ninkan waxa leeyahay waxa la tusay amiirkaygu u weynaa maxamaxaashi ma aqaan ma ku dhahay
ninka ma taqaana ha maxaa ku taqaana hilible 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 wax kale kuma taqaan may waa dareensanahay waxay yihiin waana ogahay inaysan waxba ka dambeeynin waa ogahay waxaa dhacday haddii la itusi nimanka magacyadoodii ma ahayn oo la itusi sabiradoodii waxaan dhahay ma aqaan markay ma aqaanteedu ay badatay kadib dhindhahan ka xirnaa dhindhaha waa laga furay magacada markii la sheegay sabir ayaa la itusi sabiradii waxaan ku dhahay hebel ma taqaanaa ma aqaan amiirka ugu weyn oo lacagta aan ka soo qaadi jiray baa marka hore la itusi anoo garanaya waxaan ku dhahay ma aqaan ma taqaanid miyaa may ninkaa ma taqaanaa hiliblaan ku aqaanaa 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 wixii oo dhan waa inkiray dhindhaha ayaa laga xiray kadibna nin aan garanaya oo shaqada si toos aan isku wadnay oo nin la dhahayo maxamed cali kalaay baa la soo geliyay asoo dhindhaha ka xiran waxaa lagu yiri uriyaa way ilmi maqlaysaa ha sheekaysta adiga saaxiibka way soo baxeen baan isiri aniga sida ila muuqato ma isan bixin dadkii meesha joogeen dhindhahan ka xirnaa abeenada albaabkay gabuusiyaan iswareystoriya baa nin dhahay ayadoo dadkii oo dhan halka ay ku sugan yihiin farsaambul waxay ila tahay marka aan qiyaaso askarigii marka ay keenay inuu albaabkaba jugsiyi oo kadibna dhahay sheekaysta oo dadkii aan ilii keenay inay su'aalan oo ciidamada CID-da ay abeenada barta ay ku sugan yihiinba waxaan ku dhahay si gaar ah oo hoos ah oo markaan dareemay inuu albaabka xiran yahay waxaan ku dhahay kalaay mata waa sax bur kalaay maxamed kalaay waa adi mata maxamed abdullahi ayaan lahaa niyo waxaan dhahay horta sabira ayaa la itusay sabiradeen waa inkiray say wax u jiraan xaaladdu waa sidee wuxuu yiri no xaaladda waa danger xaaladana waxay xataa ay maraysaa ninkii ugu weynaa qaraxa gaalkacyo samayn jiray amiirkii ugu weynaa Qaasim al-Turaabi oo baraxli qarax ku xiri jiray meel walba oo gaalkacyo asaga loo doortay ayaa xiran waa arkeen ku dhahay muuqaalka laga tusi markaas waxaan dhahay waa yaab dadka aan arkiyo dhan hadii la soo xiray waa maxay yaa shaqeynaya yaa xarakada shabaab u shaqeynaya say wax jiraan anoo yaab ila tacjibsan oo ninkiina hadalkii ii soo celiyo dhahayniyo ani ma aqaan cidii shaqeynaysa aslan indhigii ka xiran yahay bay dhaheen waa kula joognaa adeer indhiga laga furay joog dadkii meesha way taagan yihiin way fadhiyaan markii wax kacay mal aan waxaan u qabaa inay baxeen marka shan tiimood markaasaan waxaan go'aansaday maadaama ay xaaladana danger ay tahay oo meel xun ay marayso oo haddana aan si fashilmay mar labaad iyo mar saddexaadba inaan wax walba markaan aan saarin oo cadeeyo waxaan ku dhahay waa sax waan ahay waan ka mid ahay cadeentiyo faahfaahisan oo haday warka madaxdiiska dhigi baan hadeer si dhabta iyo si saxsan ban nagu dul maraya waxaan ku dhahay dadka ay itusteen waa dad ad soo socdeen qalbigan waxaan ka dhahay tolo yaa u tilmaamay wax allaala wixii amiir ahaa iyo ciidamadiisii ninkaas ku xukumayay haddii isku xiran yahay waa arin aan la yaabay runtii 18 sano ilaa 16 sano waxaan ka shaqayn jiray sida tan maanta sanadka ay dhacday gaalkacyo weligeed ma aysan dhacin waxaan isirey maxaa qaldan dad ajaanib oo qabuuro siyaada ah miyaa Puntland ku soo kordheen baan qalbi iska dhahay
ma aha arrinkan waa arrinka weyn taas waxay cadeynaysaa howlgalka la qabtay la tacjibki iyo la yaabka oo igu sugan bay runta cadeynaysaa macna ma leh ha dhacdo al-shabaab aniga markaan ka faaloodo wax badan ayaa la shaqeeyay wax badan haddaan shaqeeyina wax badan ay wanaajiyeen wax badan way xumeeyaan anoo doonaya diinta inaan kor u qaado mar aan ku dareemay inayna dadkaan ay wax mabda iyo diin ayna haysan oo masaakiintii caruurta iyo nin kasto ka badso inay tahay arrinka markaan ogaaday anoo u arkay dadkaan inay dad nooc kale yihiin shantaas magacyadooda markaan kala qaado nin kastaba kow waxa ka ah maxamed cabdullaahi abkow waxa laba ah maxamed cali kalay waxa saddex ah ismaaciil daawud jiiro oo loo yaqaan xarfaanay waxa afar ah xasan muuse cumar oo loo yaqaan xasan niini waa loo yaqaanaa shantaas ayana baa anu xukumi jiray kadib waxaa dhacday lacag inaan aniga iga soo daahdo kadibna aan lacagii ummadda aan ku sii tirikoobo oon ku sii bixiyo lacagtii baa igu go'day deenkii baa igu go'ay anoo wax badan tabanaya oo xaalka caadi uusan ahayn oo meel aga maarmo aan waayay baan waxaan ku dhahay inta isu imaatiin tashta aniga waa xanuunsaday ishaas laga qabtay waxaan aaday garow marka abeenadan garow aaday risaaladii waa wareejiyay waxaan ku wareejiyay maxamed cabdullaahi abkow oo amiirka guud ii soo amray ninka ii wareeji buu yiri mar allaal markaan wareejiyay baan xisaabtay waxaan ku dhahay lacag intaasan leeyahay oo adiga xaggaada amarkaada u ahay howlgalka intaas la fuliyay inta aan waa idin soo dhaafay aan shantaas shirkadood aan howlgalka 2008 ilaa 2019 wax la fuliyay waxaan inama caadi ahayn ay dadkan ay shaqeeyaan saason abaal aan ku waayay inta badan oo waliba aan waxigana xagooda galay oo waxna iga soo noqonayneen baa waxaan ku dhahay lacag $580 leeyahay si waxay ugu jawaabay adeer macaan lacagtaas waa ka baxday mar kale lagu siinayo uu imeermeeray bartii ayaan ku dhaqaaqay waxaan aaday waxa imeermeeriyay magaciisa maxamed xaashi muumin abu dayib amiirka guud gobolka mudug u jooga xarakatu shabaab mujaahidiin markaa wax iga soo socon aan xanuunka igu siyaaday baan waxaan aaday magaalada garoowe haddaan aaday meesheedii hilibka ayaan xiray dadkii ayaa waxay arkeen nin baxsaday runtii nin gaalkacay ka tagay garoow uma baxsanayo dadkii hilibka lacagta igu lahaayeen shantii bay waxay arkeen nin baxsaday oo lacagtii la dhuuntay waa imaaday waxaa lagu xiray saldhigga bartamaha anoo u arkaayo kheer baa waxaa lagu gudbiyay gaalshir habeen waxaan dareemay xaalad amni inaan ku jiraba sababtoo ah nimankaan ninka ka baxa waxaa u sharci ah inuusan daaqinba dib dambe la soo afjarba gabigiisa waayo hadduu baxo sir baa baxday hadduu joogana sirti caadi bay u joogtaa anoo u arkaaya baa waxaan arkay markaan xirnaa muddo 8 bilood ayna nafar iga soo booqaneen oosan ii imaaneen oo lacagtii ummadda igu lahayd xataa si xaaladda ay tahay amiirka uu isan dhahin baa waxaa meesha igu imaadeen 4 wiil oo la soo xiray 2 qol ayaa la geliyay 2 qolka igu soo gashay 2 wiil aqoon caruur ahaan baan u lahaay oo xaafaday ka tirsanayeen israac waa wareystay waxaan ku dhahay warka wara xaaladaha war waxay dhaheen anagu xaaladaas baan la kulunay kadibna
baaris baan nul sameeyay waxaan nahay waa caddeysani anoo garanaya baan 3 maalmood daba socday oo ogaaday inay yihiin markaa kadib bay wiilashii ii caddeeyeen ilaa abtana maanta ani iskuma aan sheegin waxay ii og yihiin hilib leh dadkoo dhanna hilib la yaqaana cayaalka waa Cabdullaahi Faysal iyo Barqad baa xolligu soo gelin abjoonka waxay dhaheen arrinkaas aan la kulunay anaga wax saasa maba geesanba kadibna wixii way fashilantay waana la soo xiray anagana waxaan ku soo tuuray jeeri markii la dhahay aniga arinta la ila baxday waxaan isiri alla ilaahay adna meesha kama maqnid waa tagi doontaa baan go'aan hoos ka hariiqday inaan tagaayo ogaal baan ku ahaay xabsiga cid igu soo booqanaysay ama igu imaanaysay midna ma jiro anoo hantideeda wixiga maqayn oo horan go'aan aga gaaray baa hadda waxaan ku sugnahay gacantii dawladda Puntland gaalkacyo tiimanka ka howlgalaan haddii loo baahdo in macnaa tababar la soo siiyo xaradheera ku dhow xaradheeray tababar ka soo qaataan kuwa xaradheera ka baxaan haddii xoogaa la garan waayo Muqdisho waxaa loo bedelaa buulfalaay iyo tortoro kadib ay ku casriyaysan bay ku imaanayaan shan kale ku sii sugaysaa saasa isku bedelnaa marna meesha ma faaruqdo waa ka arintaas markaa wax kaga sheego shanta shirkadood oo aniga mas'uulkan ka ahayo on sirdoonka iyo saxanta aan u ahay oo kadibna amiirka ku xig aan u ahay ay ka shantaas oo ay kana ay sii dambeeyaan oo shan kale ay sii hooseeyaan inta aan ku sheegay shanta nin aan ku sheegay baa faahfaahin ka siin karto waana weydiin kartaa shan bay xukuntaa shanta xukunto bay ka warmi kartaa aniga shanta aan ka warmaayo magacyadooda waa ku sheegay waxay yihiin waa ku sheegay waa taa howlgadada ilaa 20 ilaa 25 bay sameeyeen oo dad ah oo rabaxday oo madax jabin ku rabaxday anaga waa madax jabinka bay qaabilsanayeen shirkadeeda 25 ka ay baraxle ay ku bireen oo ay ku xabad ay ugu dhufteen oo magayseen madax ay ku jabiyeen ma aha runtii mid la soo koobi kara sababtoo ah qofka maanta hadduu qadeeyo oo maanta wax ku qadeeyo baasto oo bari baasto ku qadeeyo saakon baasto tikal makaroon oo ku qadeeyo ma kala garan karo laakiin wuxuu garan karaa qofka ugu horeeyo uu dili buu sheegi karaa markaan xoogaa aan isku dayo inta aan ilaawsan yahan kulli dadba iga dambeey doono oo soo fuuli doonaan ay sii faahfaahin karaan ninkii godka cusbada lagu dil jiray godka cusbada ninka lagu dil jiray sida Cabdalla Awax Cawareer markii wadada la soo dhaafo ninka lagu dil jiray waxa kamid ah talihii istakiin oo ciidamada dawladda federaalka iyo waxa Puntland u dhaxaysay ninka ahaan jiray isku darta gacanta waxa lahaay kalaay baa lahaa shirkadda kalaay baa lahayd waxyaalo badan baa jira waxa jira ninkii cagaar weyn lagu dil jiray magaciisa xasan weyne wax aan la soo koobi karin waa runtii inta aan ka xasuusto kullee nin 8 bilood xirnaan waa ahay waana xanuunsanahay inta badan intay gacanteeda ka bixeenna waa 1 sano oo hadda aan ka maqanahay aniga oo kadibna gacanta Puntland aan ku sugnahay wixii iga dambeeyay ayaga kullee faahfaahintooda iyo wax laga weydiin karaa waa in xiriirino nafar ma maqnaba waka waxa dilalka ay geysteen shirkadahaas shanta shirkadood oo shanta xukuntooshan la ka qofa aduu aan wax ku ahayd mudada xirnayd ka hor isdii loo dhisaa qiyaas marka hawlgallada iyo dilalka ay sameeyeen qiyaastii dilalka ay sameeyeen markii la qiyaaso 25 bad xaggaas ay u dhaafaysaa
laakiin yaa sheegi kara sida neefka anaga waxa u bireeno hilibkiisa hada maanta markaan 20 neef oo kale anaga iibsado la bireeyo neefka ma taqaana sumad hebel soo saar hadii loo biyaa taqaana waa noocaas oo kale ah kalama taqaanid ilaan waxaan waa wax la caadaystay oo shaqo laga dhigtay oo lagu socdo waa ka boqol inay gaarana suurtagal ah xataa waayo bishii waxa dhacda 2-3 dil baa dhacda oo mas'uuliin oo madax iyo wax u badan tahay ganacsada iyo doctorin dhinaca Puntland aniga kama howlgal jirin okay runtii horta dawladda Puntland wax badan ayaan ka soo shaqeeyay kaalkacyo iyo Boosaaso markii la isku daro 17 sano ilaa 2009kii 8 ilaa 2019kii kullee waad garan kartaa farqi weyn ayaa u dhaxeeya intaasna qof igu yaqaan inaan hilib la ahay moogiye qof kale oo sheegi kara ma jira waxaan takhasus weyn aan u leeyahay oo magaalada Baran aan ku qaatay sahanka iyo sirtoonka baan ku qaatay magaalada Baran baan ku soo qaatay waxaan leeyahay runtii hadii dawladda Puntland kullee aniga nin wax geystay baan ahay dhibaatooyin far badan ilaahay baa caafin kara oo dadkii ay caafin kara mooyee ilaahay xataa ima caafin karo waan ogahay aanoo dhibtaa geystay hadii ayaka ay dhahaan dawlad ahaan dawladda federaalka iyo horta dawladda federaalka iyo dawladda Puntland waxaan ka codsanayaa maadaama qof gafay oo dhibka iyo waxyaalahaasna ay ku qaliftay aqeeda inuu fahmay aqeedadiina ay la balaaratay dhan lacag ay isku bedeshay oo nooc walba aan u garto waxaan codsan lahaa inay cafis aniga naf ahaanteeda ay ii fidiso umada ila xirana inay u fidiso waan jeclaysan lahaa hadaysan inoo fidinina kullee mar walba anaga waa kullu nafsin daaqatil maut waa xukumanahay oo mar walba dhiman lahayn waana dhimanayna qof walba noolna inuu dhimanayo ogaal buu ku yahay hadduu waqtiga intaan ku ogaan alxamdulillah rabbil alamin waxaan jeclaysan lahaa inay isii deerin oo igu toogtaan arinka aan geystay aabdiida anaga waa naqaan aqaabta aan leeyahay waa dil wax kale agama fadhi kama sugay Puntland inay sii deyso wali runtii waxaan ku sheegayaa anay Puntland inay sii deyso ma sugay sababtoo ah haday sii deyso xataa oo magaalada igu sii deyso in shacab caadi laga dhigo waxaan ka badbaadeenin xisbi aan ka soo baxay baan ka badbaadeenin waxa ii fiican sida aabdiida marka anay dilba anay ii fiican ba aan run aanti nafsadeed markaan ka hadlo waxaan kula talin lahay dawladda oo iga dardaarana oo si fiican aan mar labaad hadan aan ugu celinayo oo iga dardaarana dawladooyinka ka howlgala Soomaaliya oo dhan walba leh Puntland iyo Galmudug iyo Soomaali federaalka iyo koonfur galbeedba nabad sugidda in la siyaadiyo baan u sheegayaa sababtu maxay tahay gaari ordaayo teknika oo socda dadka way garanayaan ninkasto aqal leh in lagu soo socdo uu dareemaya laakiin sirdoon iyo CAD iyo markay tahay nabad sugid qofna qof ma fahmaayo hadda arinkan Puntland ka dhacay waxa soo afjaray CAD haday CAD ay noocan u shaqeyn lahayn Puntland waxay ku jir lahayd waxay waa nooc kale waayo asaga booliis wax kale ma aha hore inuu qaato carruurta kala celiyo wax kale asaga uma joogaba waxaan leeyahay marka CAD ha siyaadeen nabad sugidda ha siyaadeen baan leeyahay dardaaran baa iga tahay intaasna waxay iga tahay dardaaran iyaga borku dhacayna ma bayrin karayaan iyaga borku dhacayna ma bayrin karayaan uusan wada baran alquraha ka eekaha inta beenka sheegaha igu socoodu baaqaha uusan wada baran alquraha ka eekaha inta beenka sheegaha igu socoodu baaqaha